madaxweyne waxaanu soo diyaarinay warbixintii guud ahaan gobolka waa nabadgelyo abaar ba'ani nama hayso gobolku muu gaadhin heer xun muu gaadhin roobabkiina way noo bilaabmeen intaa waqooyiga afkaas haraar laga galo ayaa noogu abaar xumayd iyo intan magaalada iyaguna mar hadduu hawdku bad qabo horey xoololaydii oo dhammi u guurtay abaartayadu may gaadhsiisnayn heerka ay gobollada kale ka gaadhay ee naga xigaa gubanka iyo xeebo waxaanu u biyo dhaaminaynay 14 degmo tuulo iyagiina ilaahay intoodii badayd uu naga soo furtay oo roob wanaagsan baa habeen hore noo daayay taas waa xaaladii abaarta xooluhu ay caafimaad qabaan intaa markaan u dhaafo mudane madaxweyne sidii aad amarka nagu siisay dowladda la magac baxday wadajir iyo waxqabad gobolka markii xukuumaddan cusub timi waxaan bilownay in aanu meelihii ugu darnaa wax ka qabanno ee nabadgelyada had iyo jeeraale la iskaga hor iman jiray waa degaamaynta cusub waxaan aada ugu mahadnaqayaa wasiirkii deegaanka oo halkaa fadhiyo cagaftiina noo soo diray nagana la qayb qaatay sidii aanu uga howlgeli lahayn in yaroo kooban umaan siinayaa wasiiro badan baa noo yimi kobcinta maaliyadda iyo sidii cashuuraha loo ururin lahaa oo iyaguna halkan runtii dadaal badan sameeyey wasaaradda caafimaadka oo caawa kolley howlahaad ku dhawaaqi doonto aan filayno in gobolka dhakhtarkii ugu weynaa ee laga dhiso inaad noogu baaqi noo dhagax dhigi doontaanu diyaar u nahay xaaladda guud ee gobolka waa nabadgelyo